runtii taasi waxaan u malaynayaa mid maantay aniga dareen ama shakhsi ahaantayda inaan ka hadlo markaan uguma horeyso awal baan hore uga hadlay haddana fursaddan dahabiga waa inaan ka faa'iidaystaan jecelahay gabadha Soomaaliyeed ee dhibaatada loo geystay waxaan aaminsanahay inay ahayd gabar Soomaaliyeed inay ahayd gabar lagu tilmaami karo Soomaali sinjiga diinteeda islaamka oo Soomaali dhameystiran ay tahay gabadhaasi tacaddi ayaa loo geystay waxaan aaminsanahay aniga dadka gabadhaasi dhibaatada u geystay inay yihiin daciifiin kuwa dadka ugu liito kuwaan had iyo jeer Ilaahay uga barinay inuu meel xun ka bixiyo waxaan aaminsanahay Ilaahay idankiisa inay soo ifi doonto wixii gabadhaasi dhibaatada u geystay war miyaadan ogeyn daciifka danaynhayo inuu gabadha Soomaaliyeed dhibaatada u geystay inay kula dhalatay miyaadan ogeyn gabadha Soomaaliyeed miyaadan ogeyn inay ku dhaxday gabadha Soomaaliyeed miyaadan ogeyn inay tahay ayeeyada miyaadan ogeyn inay tahay walaasha naaska kula nuugto war ma daciif baa taa miyaana hooyo dhibteeda aada fuulin ma 9 bilood baana hooyo Soomaaliyeed uur kugu qaaday waxaan leeyahay waa nasiib darro waxaan leeyahay waa ayaan darro waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed arintaas way soo noqnoqotay waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed ninkii maanta dhagaha ka furaysta dhibka loo geystay Aisha Ilyas dhibka loo geystay ninkii dhagaha ka furaysta wallahi billahi talaahi gurigaaga kugu soo galaysa maxaa yeelay balaayada waa laga hortagaa qofka noocaas waxaan aaminsanahay haddaan loo waday istaago inuu dhibka noocaas u soo imaan lahayn waxaan aaminsanahay haddii dadka noocaas hawlna hore waa u sheegay haddana waa ku celinaya haddii hataa la helo dad baa waxay dhigi doonaa arintooda dib ha loo dhigo laakiin aniga waxaan leeyahay maalin bacad hal la jaro qofka noocaas waa ku soo celceliyay waa fal wuxuushnimo ah waa fal aan ku tilmaami karo daciifnimo halgankii Soomaaliyeed haweenka doorkii ay ka joogeen anaguba waa ogna Xaawo Taako waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed oo aan ku faano iyadoo uur leh cunugna dhabarka u saaran yahay midna ay gacanta ku wada ayay waran haysata gaalada kula diriiraysa abaal maanta inaan uga dhigna ma ahayn inaan faraxumayno ama hooyo Soomaaliyeed ilin indheheeda aan ku aragno hooyo shakhsiga dhibaatadaasi ku geystay waa shakhsi daciif ah ummadda Soomaaliyeed waxay tiraa qofkaasi wax uu yahay lama arko laakiin Ilaahay waxaan ka barihayaa shakhsiga noocaas in saacadaha soo socdo uu soo ifo waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban aan u dirahayaa shacabka ku nool gobolka Mudug waxay tiin shacab walaale shacab wada dhashaatihiin uga soo wada jeesta meel sida daciifka noocaas oo kale ama shakhsiga noocaas oo kale oo u waarsada hooyooyinka Soomaaliyeed dhibaatooyin u geysto indhahana ka tuurahayo sumcadda waxayna dhali doontaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay hataa dhibsadaan inay adeeg u baxaan waxay dhali doontaa in gabdhaha Soomaaliyeed ay dugsiga ka qoostaan waxay dhali doontaa gabdhaha Soomaaliyeed inay iskuulada aadi waayaan maxaa markaas meeshaas ka soo baxay waxaan leeyahay Ilaahay waxaan kaaga bariyaa inaad saacadaha soo socda soo iftid mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad anoo la qaybsanayo hooyada Soomaaliyeed iyo aabaha Soomaaliyeed oo Aisha Ilyas dhalay waa kula tiiraanyoonaya aniga ka shakhsi ahaan Yunis Xasan Diina waligay waxaan u taagnaa difaaca hooyada Soomaaliyeed maxaa yeelay aniga hooyo ay dhashay naas bay siis kaas ayaa waxaan jecelahay inaan abaalkiisa rido hooyo iyo aabbo Ilaahay waxaan uga baryayaa Aisha kitaabkeeda inuu midigta ka siiyo maalinta yoomal qiyaamana hadduu maanta adduunka ku dhunto ninkii dhibkaas geeyay maalin aan la kala xishoonayn maalin qof aan wasaqarsameyn yooma la yamliku maalan wala banuuna illa min atallahu biqalbi salim maalintaas la kala baxaya maalna waxa ma taraya awoodna waxa ma taraysa illa biqalbi salim qofka awoodda uu leeyahay maalintaas la kala arki doona Ilaahay waxaan ka baryaa kitaabkeeda inuu midigta ka siiyo gacanka xaq daran baa dishay idinkana hooyo aabba waxaan tacsidaan idinkula tiiraanayna bedel qeyr qaba Ilaahay idinkaga bedelo aad iyo aad ayuu maasantii ugu dambeyntii Yunisow dadka ka daawanaya Halabuur Media baaqa u diraysid muxuu yahay waxaan u dirahayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay u istaagaan nabadda qofka wuxuu wax ku noqon karaa ama uu asaagiis ku dhaafi karaa nabadgelyada haddaadan nabadda aadan haysan nolol ma haysatid iskuul ma aadi kartid waxba ma baran kartid dugsi quraan ma aadi kartid cibaadada Ilaahay hataa qalqal ay galaysaa hadaysan nabad jiro inaan nabadda meel qoro uga soo wada jeesano waxa la wixii nabadda wax u dhibay inaan dhaano war walaalo macaano nabadda aan adkayno waxaan baaq dheer iyo baaq gaaban aan u dirahayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto inay nabadda adkeeyaan wada jirna sameeyaan Soomaalinimo ayaan anagu waxaan ku gaari karnaa guul iyo cadaalad iyo midnimo Soomaaliya haday maanta kala baxdo waa sharaf darro Soomaali mid
ayaan weligeena arki jirnay shanta Soomaali oo midoodo ayaan waxaan jecelahay hadduu Ilaahay yiraahdo inaan indheheena aragno aan ku dirsanana Ilaahay waxaan ka baryayaa sanadkan sanadkiisa inaan aragno dawlad Soomaaliyeed haddana way jirtaa dawlad Soomaaliyeed oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan cadaalad u ah midda hadda jirtana waxaan leeyahay Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu garabkooda istaaga tii ummadda Soomaaliyeed wixii xunna ka qabato wixii sanna fahansiisay inuu Ilaahay nooga dhigo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta joogan iyo gabdhaha Soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa isku duubnaada gacmo wada jir bay wax ku gooyaan midnimada qaata midnimada walaaltinimo lagu gaara kitaabka Ilaahay aan gacanta ku qabsano kitaabka Ilaahay ayaan meel walba ku gaari karnaa kitaabka Ilaahay ayaan waxaan ku noqon karnaa dad jiro mar